soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ka hadli doonaa wararka ugu dambeeya 24 saac la soo dhaafay inkastoo aanan maanta war soo gelin si aan u hubino wararka dhacaya ayaan dib ugu dhigano wararka maadaama mar walba ay warar iska soo dhacayaan la xiriiro dalkani koonfur afrika arrimaha maxaan ku rahdaa immigrantiska dabcan wararka maanta aan helin waxaa ka mid ah weli horta dadkii meel ay u aadaan ay leeyihiin wax la dhihi jiray registrationka ama dukaamada halka qaar dadku kalena ay leeyihiin xarumaha dowladda ee la buux dhaafiyey sidoo kale nimankii dowla operation ayaa dadka ka hor istaagan bina wax registraystaan oo caqabad kala noqday kuwaas booliska la sheegaya maanta inay kala raacdeen qaarkoodna ay xireen inkastoo aanan hadda wax muuqda lagu sameyneyn wararka ugu muhiimsan oo soo qaban karna waxaa ka mid ah dadka ajaanibta ayaa sheegay in dukaamadooda ay nadiif yihiin balse aysan aqoonin meel ay registration u aadaan. No erase powder. I don't have. I'm not using because I don't have expert staff my shop. Police every time is searching. nin ajnabiga oo ka mid ah dadka ku dhibaataysan sidii u registraysan lahaayeen waxaan la yidhi business registrationka oo 21 maalin oo almost 5 maalin ay ka baxdaba dhanka kale waxaa la soo qaatay mid ka mid ah kansalarada deegaanada qoteen fakiila mashaa oo la yiraahdo fakiila malaasha la yiraahdo oo isaga caawinaya dadka ajnabiga ah sidii ay ku heli lahaayeen warqadooda una sharaxay wax walba oo suuragal ah. Those pick and pay shop right where they come from. Where they are coming. We are Africa. Africa is the same. After that, he can give you all the list. These people is like this the shop is all. He can tell you like that. Can give us. Now you'll be able to know what needed. Doesn't matter whether I write code package. I'm gonna put the medicine. You making business, yeah, I'm making money. Why How I'm can gonna you put the put something that's No, gonna I can't do business? I can't. kansalarkaas iyo ajaanibta inay isfahminayaad muddo waana meesha ugu macquulsan oo marka businesska local municipality laga registraysanayo la aado waxyaabaha kale in waxaan u maleynayaa anigu nafsadaanteeda ay macnaha waxyaaba iska boga yihiin oo dadka lacag looga cadaysanayo oo inta badan hadda ka socda gobolada Western Cape aada uga socdo ayaa la sheegaya dhanka kale haddaan kusii soconno booliska dalka koonfur afrika traffic iyo metropoliska ayaa waxay dhiganayaan road blockyo aada u waaweyn kuwaas ay ku baarayaan dadka dokumenti la-aan ay dadka ajaanibta sida sharci darrada ku jooga dalka koonfur afrika isla markaana ay xabsi dhigayaan. warsoo baxayaa sheegay maadaama dalka koonfur afrika inta badan wax walba iska yihiin lacag dad milkiilayaasha guriga ah oo u rajiskareynaya dukaamadooda dad ajaaniba oo sharci la-aan waxaa warkaasi ka digay oo soo saaray ninka la yiraahdo Lipongo Maele oo ah madaxa dhaqaalaha dowladda gobolka qoteen wuxuuna leeyahay ciddii waxaa samaysa ayaduna halis ayay tahay annaguna ciqaabteeda ayaan marin doonaa ayaga ayaan wajihi kara ciqaab walba oo ka timaada ama dhib walba oo ka yimaada halkaas. There's something in the Immigration Act as well that speaks to that, and I think the law will have to take its course. There will be, and that's why in the statement I said they're actually putting themselves at risk, because if there was to be an accident, it means you have registered and you are the owner of the business, you are held accountable. So it's also riskier for them, and that's what they must understand. When you have registered somebody who's undocumented, and in fact it has happened in Alex, the recent case where the culprit ran away and no one knows where the culprit is, including the landlord. And that's why we're having a discussion with them. So you are asking a very important. marka wax walba oo kasoo kordhaco saacad walba nala soo socodsiin doonaa
isha ayaan ku haynaa barnaamijkan inta badan waxa dhamma waan ka shaqeyno intaana waa barnaamijkan immigrationka la xiriiro sidoo kale aad waxaa la iskugu qabanayaa sharciyada deegaanadana aad ayaa loo baaraya dukaamada weli waa socdaan in la xiro oo community boolisku iska rabsanayo way socdaan dukaamada qaar weli way xirayaan alaabtana banaanka ay soo daadinayaan halka meelaha qaarne la tegayo qolada caafimaadka iyo qolada sharciga ee immigrationka loo yaqaana iyo booliska isla socdo oo caafimaadka iyo nadaafada dukaamada baarayo isla markaana dadkan sharciga laga qabanayo qeybo badan oo dalka koonfur afrika ka mid ah aad ayaa mar walba isha loogu hayaa oo dadka gurigii ay samaysteen oo laisku sheegayaa aad baa loo kala orordayaa xaaladuna waa aad sidaas u dhib badan tahay marka dabcan waxay kaloo kasoo kordha waa isku sheegi doonaa saacadaha soo socda ayaan soo geli doonaa wararka kale haddii soo galta